fanaanada da'da yar ee Habboon Nuuro oo dhowaan show ku lahayd magaalada Muqdisho showgaasna laga soo carjacayey ayaa xalay tole magaalada Hargeysa ku qabsatay showgii qarniga kaas oo ay iska soo xaadiriyeen amase ay ka soo qayb galeen tigidhadiisana goosteen dad tiradoodu gaadhayso 1220 qof. qiimaha showga amase price-ka ayaa ahaa $30. waxaa jiray hadiyado u badnaa dahab oo ay u soo xidheen qaar ka mid ah ganacsatada reer Somaliland, waxaana jira ganacsade ka mid ah ganacsadayaasha reer Somaliland oo isaguna fanaanada ugu deeqay guri. markan waxaan odhan karnaa Habboon waxay tuurtay furka waxaanay ka mid noqotay kuwa ugu ladan fanaaniinta. haddii aynu halkaa hore uga sii soconno, fanaanada Habboon Nuuro ayaa showgeeda si weyn waxa u bilayay amase u soo camiray qaar ka mid ah fanaaniinta reer Somaliland, gaar ahaan saaxiibadeeda ugu dhow. inkastoo dad badan oo baraha bulshada caanka ah oo ay ka mid yihiin tiktokrada ugu waaweyn gudaha caasimadda Somaliland ee Hargeysa ay barbar taagnaayeen iyo qaar kale oo reer Burco ilaa iyo reer Boorama oo dhammaantood ka midaysnaa sidii ay u garab istaagi lahaayeen ugana soo barbar muuqan lahaayeen fanaanada reer Somaliland ee lagu soo dulmiyey magaalada Muqdisho. fanaanada ayaa show aan caadi ahayn halkaa ku qabatay, waxaanay qaaday heese kala duwan iyadoo dib ugu soo celisay hees ka mid ah heesaha xasuusta dheer ku leh dadka reer Somaliland, kana mid ah heesihii bilowgii loo qaaday dhaqaaqa jamhuuriyadda oo ahayd Somaliland dalkayga, Somaliland dalkayga, dadku waa dadkii Ingiriiska diray, dadku waa mid qudha. heestan oo si weyn caan uga ahayd gudaha jamhuuriyadda Somaliland 20 sano ka hor, allaha u naxariistay waxa ku luuqeyn jiray originaalkeeda Busi oo ahaa fanaan ka mid ah fanaaniinta waaweyn ee reer Somaliland, waliba kuwooda loogu dhaato amase xasuusta weyn ee faneed ku leh heeso badan oo diiwaanka galayna kaga soo muuqday masraxyada. haddii aynu hore ugu sii soconno, fanaanada showgeedan ayaa ahaa mid ka duwan guud ahaan showyadii ka dhici jiray gudaha magaalada Hargeysa, maadaama waxaan baarsanaa xamaasad ka weyn xamaasadaha kale. showyada lagu qabto magaalada Hargeysa ayaa ahaan jiray markii hore showyo loo galo jacaylka fanaanka loo qabo oo kaliya, taasoo aanay ku lamaanin wax la yiraahdo qadiyad. laakiin showga Habboon Nuuro ayaa isagu ahaa mid qadiyadi ku lamaan tahay oo Habboon intii ay xamar joogtay waxay diiday inay madaxeeda hoosgeyso qarankeedana hoosgeyso. dhanka kale waxay ku dhex laandheeraysay iyadoo hareeraheeda iyo baalasheedaba ay tumayeen kuwa doonaya inay dhulka la jaraan, waxaanay diiday inay dhulka dhigto calanka jamhuuriyadda Somaliland iyadoo ku sharaxday kofaradeeda iyo meelaheeda gaarka ay gaarka u leedahay, taasoo aan xilligaa ku ahayn waajib ay cidi ku waajibinayso, balse ahaa garashada Habboon iyo inay muujiso sarriinta qarankeeda. Habboon iyaduna taa waxay ku mutaysatay in qarankeeda, gaar ahaan bulshada reer Somaliland ee caasimadda ku dhaqan iyo daafaha iyo deegaanada kala duwan ee Somaliland ay si weyn u maamuusaan. qaar ka mid ah ganacsatada tiyaatarka ayaa u soo xidhay hadiyado kala duwan oo kala qiimo ah, laakiin dhammaantood u badnaa dahab. goobtii ay fanaanadu ka heesaysay ayaa lagu guddoonsiiyey waxa ganacsatada u soo xidhay fanaanada dahabka ugu horreeya amase ugu tun weynaa Cumar Cadiid oo ah mas-uulka tiyaatarka. mas-uulkan ayaa fanaanada si weyn u dhiirigeliyey, waxaana uu soo dhiibay dahab qiimihiisu aad u sarreeyo. dhanka kale, ganacsatada yaryar ee ku ganacsada tiyaatarka ayaa mid waliba awoodiisa hadiyad ugu soo xidhay fanaanadan. xalay tole Habboon waxa ay u ahayd habeen ka duwan habeenada kale, si weyn ayaana loogu maamuusay gudaha hoolkii ay ku qabanaysay showga. intaa waxaa u dheeraa jacaylka saayidka ay u qabaan dadku in 2 jeer la kordhiyey tigidhada amase daabacaadooda, maadaama oo marka hore la daabacay 600 tigidh oo loogu talagalay in loo goosto showgan, kuwaasoo price-koodu ahaa $30, balse tira intaa ka badan oo doonaysa showga inay iska soo xaadiriso ayaa iyaguna kalifay in loo kordhiyo mar kale daabacaadda tigidhada. ugu dambeyn markii saddexaad ayaa la diiday in mar kale daabacaad la sameeyo, maadaama oo uu buuxsamay hoolku lana helaynin meel ay dadku ku kala nafisaan, intaa ka badanna khatar la gelinayo nafta dadka reer Somaliland ee ka soo qaybgelaya halkaa. waxay qaateen mas-uuliyiinta hoolkaas iyo fanaanaduba inaanay macquul ahayn daabacaad kale, laakiin dadka uga soo qayb galay ayaan ahayn dad yar, maadaama dad intaa leeg qiimo intaa leegna ku soo galay ay ka soo xaadireen showga. fanaanada Habboon Nuuro ayaa si weyn ugu xarakaysay masraxa
waxaanay qaaday heeso kala duwan oo ka mid ah heesa ay hore u lahayd jacaylka iyo qaar ku celisa. dhanka kale waxay qaadayba heeso hore loogu yaqaanay Somaliland. waxaa ka soo garab heysay fanaaniin badan oo reer Somaliland oo ay weliba qaarkood yihiin isku koox iyo kuwo kale oo aanay ahaynba isku koox. xagga dumarka waxaa fanaanada garab taagnaa oo dhanka heesaha garab waday Deeqsan Macalin Caydiid, Rodake iyo fanaaniin kale oo dhowr. xagga raggana waa ay badnaayeen oo waxaa ugu horreeyay Cali Saki Maxamed Maame iyo fanaaniin kale oo tiradoodu aad u sarreyso. showga ayaa ahaa mid si weyn loo bilay, goobtuna waxay ahayd mid si weyn u bilan. xalay tolana waxa uu yahay fanaanada Habboon Nuura habeen ka mid ah habeenada taariikhda dahabka kule taariikhdeeda. wixii u dambeeya waa gaar, laakiin habeenkani wuxuu ahaa bayn odhan karnaa habeenkii ugu weynaa ee soo maray taariikhda fanaanada, maadaama si weyn loogu bilay xafladan. dhanka kale showgan ayaa ahaa fariin Hargeysa u dirayso cid kastoo doonayso qof Hargeysa iyo Somaliland gudaheeda ka soo jeeda inuu ku buuso deegaan kale inaanay macquul ahayn ee uu haysto hooygii fanka iyo halka laga dooliyaba. fanka iyo murtida macquul la'aanay ahayn qof ka soo jeeda Somaliland in fankiisa la curyaamin karo. Hargeysa haddii ay u baahan tahay inay cid fanka ka curyaamisan iyadoo ay curyaamin karto, balse Hargeysa aanay cidina fanka ka curyaamin karin. bal aynu ku soo noqonay showga oo socda ayaa la bilaabay in la furo hadiyadaha la keenay goobta, waxaana la bilaabay in fanaanada la guddoonsiiyo midna loogu sheego cidda ugu soo dhiibtay iyaduna ay guddoonto. xukuumadda Jamhuuriyadda Somaliland ayaa iyada laftigeedu tallaabo wanaagsan showga ka qaadatay, maadaama aanay farafarayn oo ay iska daysay dhalinyaradaas si ay iskaga kifaacaan ama si hawlahooda gaarka iskaga qabsadaan, maadaama showgu socday ilaa 2 habeenimo ku dhowaad. halka markii hore xukuumaddu ballan qaaday 12 habeenimo wixii ka dambeeyay in lagu kala dareero. guud ahaan ka hadalka barnaamijka Habboon Nuura iyo showgii xalay u dhacay ee wacdara halkaas ayaan kaga baxaya. intii aan xog ka hayay ama aan ka soo helayna waa inta. muuqaalka la garee hadda halkan la soo gaadhay waad mahadsantahay. maqal iyo dharaarsiga marna maanku kama guro mana laha waxiine waa madal xoro furan la jaanqaad Duriya Films.